deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu isbedelka ka hor kamid ahaa goobaha nabadgelyo darradu ragaadisay ee dalka dhaqankii sugidda ammaanka deegaanka ka jiray ayaa isaguba nabadgelyo darro lagu tilmaami karayay cabsigelinta muwaadiniinta iyo kutumashada xuquuqdooda ayaa ahayd halbeega laga duulo ee sugidda nabadgelyada waxaa jeelkii dhexe ee jeel ogaadeen iyo jeelasha kale ee deegaanka ku jiray kumanyaal shacab ah oo la kulmi jiray bahdil iyo jirdil iyadoo lagu marmarsiyoonayo sugidda ammaanka dhibaatooyinkaas iyo kuwa kale oo badan oo deegaanka ka jiray ayaa waxaa nidaamkii deegaanka rafasho ku jiray karkaarka jabsaday bishii Hamle 28keedii kadib markii uu harcad gacmaha ula tagay shacabka ku dhaqan qaybo badan oo kamid ah deegaanka sida caasimada Jigjiga, Dhagaxbuur, Qabri Dahar iyo Goday halkaasna waxaa ka dhacay dil, boob iyo burbur baahsan taasoo ujeedkeedu ahaa in dagaal diimeed iyo mid qowmiyadeed qarxo kaasoo dadka Soomaaliyeed kana mahadha looga dhaxabuuray qowmiyadaha kale ee dalka xilligii tagay xusuusta badnaa dilkiyo xarigiyo xasuuqa lahaa xumiyo kufsigu xaddaafka ahaa xuquuqda dadkana xaba lagu riday haba yaraatee wax dowladnimo ah oo loogu yimid inay jirto uma marin ma cidanta qaato wax walba fowda ahay wax walba hal nin gacantiisa ku jirta waxaa laga soo bilaabay zero ma ah waa -0 waa maalin galab ah bishu waa August 26 gogona waa 2018 wafdi uu hogaaminayo madaxweynihii ay guddiga fulinta ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ay u doorteen madaxtinimada deegaanka mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha ee caalamiga ee Garadwilwal ee magaalada Jigjiga waxaa si toos ah lagu soo galbiyay golaha xildhibaanada deegaanka oo halkaas ku sii sugayay si ay u meel mariyaan doorashada madaxweynaha isla mar ahaantaana loo dhaariyo waxaan ballan qaadayaa markii meeshaan mid waan ka faraxsanaa inaan maaragtay isbedelkii qayb ka noqdo oo la socdo dhinaca kalena xaalad maaragtay aad u murgan oo isbedel ballaaran u baahan iyo jahwareer siyaasadeed oo jiray markii aan ku soo dhacay waliba aniga oo kolka shakhsiyan kaliya ah badana abada teamkii meesha aan inaan la shaqeeyo aan ugu yimid inaan isku afkaar aan ahayn walaas badan baan dareemay runtii xilliga iyada laakiin waan ku kalsoonaa inaan hadii aan u guntano wax ka bedeli karno inkastoo caqabadihii aan filayay kuwa ka badan runtii sanadkaas aan la kulmeen iyadoo bulshada deegaanka iyo guud ahaan dalkan Itoobiya si weyn loogu dhagtaagay isbedelada siyaasadeed taariikhiga ee ka dhacay deegaanka ayaa waxa si weyn dhagaha loogu taagay hadalka ugu horeeya ee madaxweynaha cusub ka jeedin doono golaha baarlamaanka kadib dhaarintiisa hadalkaas oo laga dheehan doono istiraatiijiyadaha iyo jihooyinka siyaasadeed ee maamulka cusub raaci doono waxaana muwaadin kasta oo deegaanka ku noolay uu dareynaya inuu hadalkaas ka dhaxdhamiyo wax u rumeynaya rajada weyn ee ka dhex guuxaysa maankiisa kadib 27 sano oo ayadkeed inay si madax bannaan oo xushmadaysan u adeegsadaan xuquuqooda siyaasadeed iyo kuwa dimuqraadiyadeedba waxaan xoog saari doonaa in isla barnaamijkaas isbedelka ay ka socdo wadanka guud uu ka socdo deegaanka haday noqoto dhanka dimuqraadiyadda xuquuqda insaanka horumarka iyo in la yareeyo la soo afjaro colaadaha dhex yaalla shacabka dhexdiisa ama dadweynaha kale ee nabadda qodobka labaad ee u baahan in xoog kala saaro waxaa weeye soo celinta sharciga iyo sarreynta sharciga iyo xuquuqaha xorriyadda qowmka lana joojiyo waxyaalaha ay ka mid yihiin awoodaha xad-dhaafka ay yeeshaan ama ashkhaas ha noqdaan ama ururo ha noqdaan laakiin inaan la ogolaan qayb ka mida dowladda hay-adaha haykalada dowladdu inay yeelato awood xadka baxa oo xadka goosa oo ay ku dhibaateyn karto dadka qaybta saddexaad ee xooga saari doono diinaha waxaa ka mid ah inaan ka shaqeeyo sidii isku soo dhaweyn lahaa dadka colaadaha qabiilka kala eesyooshooyinka iyo arrimaha la xidhiidha in dhammaantood maarka laga qabto qaybta afraad ee aan xoogkaas ka saari doonaa waa colaadda khaaska ah ee la dhexdhigay Soomaalida iyo Oromada
taas oo lagu adeegayo dama siyaasadeed oo inaga inaga madax bannaan qolaadaasi cidna ma faa'iido uma laha sidaad la socotaan waxayna u baahan tahay in si cilmiyeysan loo galo oo si cadaaladda ku salaysan loo soo afjaro qodobka shanaad ee aan isleenahay xoogga aad saartaan waxaa ka mid ah in la soo celiyo astaamihii soomaalinimo ee muujinayay isirka aan ka soo jeedo taas oo aan wax dhimaaq ku ahayn inaan ka tirsanaano oo dalkaan ka tirsannahay Ethiopia waxaa kaloo xoogga saari doonaa inaan soo celino sheerka ay ama kaalinta shacabka Soomaaliyeed uu ku leeyahay qaybsiga iyo qaybsiga khayraadka dalka lurkiyo xanaftiisa maaxigayo dalkiyo xiiqii kasoo xasile marka laga tago waaga cusub ee siyaasadeed ee u bariyay deegaanka Soomaalida farxadaas iyo yididiladaas hareysay guri kasta oo deegaanka ku yaala haddana waxaa muuqatay inay adkaanayso in durba la iswaafajiyo wadcigii siyaasadeed ee deegaanku marayay ee su'aalihii lixaad kale ee shacabka deegaanku tabayay in looga jawaabo laba siyaabood oo jira awgood waa midda koobaad dowladda cusub ee deegaanka Soomaalida waxay dhaxashay burbur dawladeed oo dhan kasta waxaa dhammaan meesha ka baxay oo burburay wixii adeeg ahaa ee dawladda ay siin lahayd muwaadiniinteeda taas oo ahayd shirqool siyaasadeed oo dawladda Cabdi Maxamed Cumar ugu tala gashay inay dawladiba ka dambaynin waa talabaada baahiyaha shacabku ay qabaan oo ahaa kuwa dhinacyo badan oo muddo badan soo jiitamaya una baahan waqti iyo daraasaad in la sameeyo haddii ay noqoto cadaalad darrada iyo xanuuno fara badan oo dhanka ku tagrifalka oo lagula kacay hantidoodii shacabka bahdil iyo duudsi ba'an oo ummadda deegaankana ay tirsanaysay muddo ku dhowaad rubuc qarni ah kulley isfahan la'aantii ka dhalatay sidii loo wadi lahaa isbeddelku waxay u yar noqotay arrimo yar dhibaato ah oo waxaan filayay markii meeshaan nimid markaaba inaan dee go'aanadii iyo maskaxdii aan ku nimid inaan ku qabanno aan ku dhaqaajiyo laakiin caqabado badan oo isfahan darradii iyo isqa qabsigii siyaasaddu ay koob ka ahayd baa ila kulmay kuwaasi inay muddo badan oo aan wax qaban lahayn naga lumiyeen baan dareensanaya waxaana madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar uu markiiba booqday dadkii dhibaatada loo geystay iyo hantidii burburtay si loo ogaado xaddiga khasaaraha soo gaadhay iyadoo caqabadaha siyaasadeed ay yihiin kuwa taagan ayay haddana xukuumadda cusubi ay ku dhaqaaqday inay qaado tallaabooyinkii ugu horreeyay ee mudnaanta la siinayo waxaana mudnaanta koowaad la siiyey sidii dib loogu soo celin lahaa sharciga iyo kala dambaynta iyo dib u soo noolaynta karaamadii iyo dadnimadii ummadda Soomaaliyeed si taas loo xaqiijiyana waxaa dib loo soo celiyey magacii rasmiga ahaa ee deegaanka Soomaalida oo ahaa dowlad deegaanka Soomaalida iyo soo celinta calankii deegaanka oo muddo rubuc qarni ka hor loo sameeyey kaasoo ka turjumayay hibada iyo hidaha Soomaaliyeed ee Soomaalidu ku suntan tahay kulley soo noolaynta astaamaha Soomaalinimo waxaan aaminsanahay in wax qabad taariikhiya oo jiilasha dambe aan fici doona aan ka qabanay wax sahlan maanta u muuqda laakiin xilliga anagu aan ku dhiiranaynay runtii aan qabadad badan inay ku dhiiranayn maadaama dadka aad loo bahdilay waxaa kamid ah magaca Itoobiya la leeyahay in laga reebo anagu Soomaali baan leeyahay magaca anaga hana lagu yeero in leeyahay talaabo waxay ahayd aad u fiican oo hirgashay waxaa kamid ah calankii aan inagu samaysanay inagu ogol oo dadka astaamihiina iyo isirka Soomaalida ay ka muuqato inaan soo ceshano waxaa kamid ah in ay heestii qaranka ee deegaanka soo ceshano oo ay laba jeer ka hadlayso Soomaalinimo halka tii hore waxa ay garanayno kala ay akhriisay waxaa kamid ah in meelihii macdadiini iyo goobaha waaweyn ee deegaanka kamid ah aynaan ugu magac darin geesiyaal dad kale ay sheeganayaan geesiyaasheenii inagu aynu lahayn aynu ugu magac darno waxaa kamid ah Malazinaawi hospitalki in maanta Sheekh Xasan Yabare la yiraahdo waayo Soomaaliha anaga Malazinaawi waxa looga muhiimsan Sheekh Xasan Yabare oo ah sheekhanagi marka inaanu isku kalsoonaano oo jinsiga Soomaaligu iyo astaanta Soomaalinimadu ay noqoto wax lagu faano gaar ahaan in jiilasha dambe wax aan fici doona ay noqonaya saansaanteedina hadda ugu muuqda wax badan oo arrintaas ay tirtay oo way jirtaa dadka aan walaalaanahay jaarkanahay Soomaalida isdhexgalkeedana wax wada ka keenaysa maanta waxaan aaminsanahay in fursado far badan ay u furmeen dad Soomaaliyeed ama kuwa deegaanka oo tagay meel kale ha noqdaan ama kuwa kale xagga imanaya arrintaasna waxay ku dhex jirtaa regional integration isdhexgalka geeska Afrika barnaamijka la yiraahdo ee hormuud ka yahay Ra'iisul Wasaaruhu
calankeena midabkiisu waa cagaar cadaan jiro magacii kililku u lahaa oo laga lifaaqay si gaara annagoo Etoobiyaanimadii aan diidanayn kuwa kalena aan lagu laafaqin in la yidhaaho Soomaalida Ethiopia oo lagu soo celiyo magacii hore oo waxyaalaha yimid astaantii la garanayay ee Soomaalida lagu garanayay ama dadku ay ku heshiiyeen inuu calankooda yahay ee markii dambe laga bedelo la soo celiyay waa qodobka labaad ee magaranaysa la helay si looga gudbo caqabadihii dhanka ammaankana waxay xukuumaddu markiiba magacowday taliyayaasha hay'adaha ammaanka oo ay ugu horreeyeen ciidamada liyu booliska caadiga ah iyo ciidamada asluubta madaxweyne mustafa kadib markuu xilka la wareegayba wuxuu markiiba gudagalay soo dhisidda gulihii kabineega ee xukuumadda si hawshaasi u dhaqaaqdo waxa uu la tashiyo la sameeyey qaybaha kala duwan ee bulshada si fagaaraha siyaasadda iyo alifka isbeddelka hanaqaadkooguba ugu curto xukuumad tayo leh oo Soomaalida deegaanka ku dhaqani ay isaga wada dhex aragto midhaha isbeddelka ku yimid rabitaanka shacabka golaha wasiirada oo xisbiga talada haya ee deegaanku uu ku soo xushay kartida hogaamineed aqoonta biseelka siyaasadeed iyo kaalinta shakhsiga la magacaabayo ku yeelanayo sameeyay bixinta shacabka deegaanka iyo dib u soo nooleynta rajadii burburka qarka u gaadhay golaha wasiirada ee madaxweynuhu u soo bandhigay golaha wakiilada deegaanka kadib falanqayn iyo dood waxay cod waxa ku ansixiyeen xukuumaddaas iyadoo aqoonta xukuumadda wasiiraduna 96% ay ahayd digriga labaad iyo wax ka sareeya waxaan ballan qaadaynaa walaydin aaminay idinkoo aqoon ummadda xilkeediyo amaana idin saarane dawladda kabinigii hogaaminayay in dad aqoon leh tayo leh dareen leh inta badan inay soo qaadato ay hogaaminta ay keento oo waxyaalaha muhiimka ah waa aqooni horumar ay hogaamisay mid waara oo natiijo leh uu noqda horta habkii dawladda loo dhisay waa markii ugu horeysay oo qof kasta oo Soomaaliya oo deegaankan u dhashay uu dareemay inuu deegaanka iyo xukuumaddiisa wax ka leeyahay xukuumadda inay xukuumaddiisa tahay kuma beesgaraysna yani reer dadkii Soomaaliya ee xukuumadda loo qaybiyay dadso xukuumaddu markiiba meesha ka saartay nidaamkii dib u curashada oo shacabka deegaanku dhibsadeen waxay bilowday dib u soo dhisidda qaab dhismeedkii dawliga ee heer gobol heer degmo iyo heer maamul magaalo haddaba soo dhisidda nidaamka haykalka dawladnimo oo minsal iyo baar ah kadib burbur kor ilaa hoosa shaqadana laga soo bilaabo bannaan ma ahayn hawl sahlan oo loo marayo wadooyin ubaxyo qurxoon la goglay ee waxaa daadsanaa caqabado iyo qodaxyo halis ah oo furdaamintooda iyo kaleexashadooduna ay u baahnayd hawlkarnimo hogaamineed bisel siyaasadeed iyo garaad tanaasul u nugul qalalaasihii siyaasadeed ee ka dhacay deegaankeena ayaa wuxuu sababay in haykalkii dawladeed oo meesha ka baxo maamulada heerarka kala duwan inay ka tagaan goobahoogii shaqo isbeddelku markuu dhacay kadib ee xukuumadda cusub la dhisay shaqadii ugu horeysay ee mudnaanta siinay ee aan waqtiga badan gelinay waxaa kow ka ahaa dib u dhiska maamulada heerarka kala duwan laga bilaabo heer deegaan xafiisyadii heer deegaan oo hogaamintii lagu meeleeyay iyadoo loo eegayo aqoontooda waayo aragnimadooda iyo firfircoonidooda shaqo sidoo kale hogaaminta heer gobol heer degmo heer maamul magaalo in la dhiso ayaa laga maarmaan noqotay hawshaas ugu horeysay waxaa lagu xijisiiyey in hogaaminta cusub xil iyo waajibaadka ay yeelanayaan lagu tababaro taana waqti baanu gelinay dawladdu may dhaxlin wax at least meel dhisan oo ay isbedel nabadgelyo ku yimid dawladda ma ahayn dawladda oo mas burburto dib loo soo dhisay ay ahayd marka dhibaatooyin iyo cabashooyin yaryar oo degmooyinka ama meelihii la dhisay ka soo baxay way jireen laakiin guud ahaan waxaan oran karaa in muddada kooban gudaheed muddo 3 bilood aan malaynaya gudaheed in dib loogu soo dhiso xafiisyada iyo hay'adihii dawliga ah ee burburay dadaal fara badan oo ay dawladdu iyo xisbi ahaanba ay geysteen baa ahayd waxaanay keentay in laga badbaado burbur ka sii badan oo la sii geli lahaa ama is-afgaranwaa ka soo bixi lahaa dhexdooda ka soo bixi lahaa in la xaliyay waxa ugu weyn la qabtayna ay ahayd baan aanu qabaa
si shaqooyinka ammaanka loo karaar geliyana waxaa qiimayn sal iyo baara lagu sameeyey dhammaan hay-adaha nabadgelyada taasoona sababtay in qaar ka mid a saraakiishii dembiyada lagu eedeynayay xabsiga loo taxaabo halka kuwo kale ay dalka ka carareen laguna daba jiro waxaa kaloo iyagana la dalacsiiyey saraakiil kala duwan qiimayntaasi keliyana laguma daynin ciidamade waxaa xukuumaddu dib u habayn iyo tababaro ballaadhan siisay qaybaha kala duwan ee hay-adaha ammaanka waxaana casharro iyo tababaro la siiyey dhammaan hogaaminta dhexe iyo kuwa sare ee ciidamada deegaanka tababaradan ayaa ujeedkeedu ahaa in la kobciyo awoodda fulineed ee hay-adaha nabadgelyada dhisidda xidhiirka u dhexeeya ciidamada iyo shacabka iyo iyada oo fahan dheeraada laga siinayay dastuurka dalka iyo kan deegaanka oo hoggaansanaanta sareynta sharciga iyo dhowrista xuquuqal insaanka oo horey loogu eedeynayay ciidamada liyo booliska waxyaabihii soo khaldamay xagga xorriyatul qowlka iyo mataqaanaa waxa weeye iyo dhanka xuquuqul aadamiga labadaaba dhaliilo waaweyn baa ka jiray dhinaca nabadgelyada iyo maamulka suuban howlahan xooga saare waxaa ka mid ahaa dib u habeynta hay-adaha nabadgelyada hay-adaha nabadgelyada deegaanku inay noqdaan kuwo faham fiican ka haysta dastuurka dalka iyo deegaanka iyo kaalinta kaga aadan hirgelinta dastuurka kolkaa dastuurka iyo qodobo kale oo la xidhiidha shaqada loo igmaday ayaa lagu tababaray dib u habeyn baa lagu sameeyey in aragtidooda wax laga bedelo ayaa la isku dayey shacabka inay si daacada ugu adeegaan inay dastuurka u hogaansanaadaan in shuruucda kale dalka iyo deegaankaba u hogaansanaadaan si daacada inay shacabka ugu adeegaan inay shacabka ixtiraamaan ayaa lagu dadaalay taasna natiijooyin wax ka oola ayaa ka soo baxay marka liyu booliska in dhaqamadii xumxumaa iyo dadkii xumxumaa ee dadka tacadiga u geysanayay laga dhaxulo qiimayno fara badan loo qabto lagu saxo ciidan deegaanku leeyahay oo u taagan dadkeena ay noqdaan iyadna waxay ahayd go'aano geesinimo ah oo ay xukuumaddu qaadatay aadna waan ugu faraxsannahay aadna waan u soo dhaweynaynaa ciidankii shacbigu lahaa ee ciidanka la yidhaahdo ciidanka deegaanka hadda ka hor ciidankaasi wuxuu ahaa ciidan dadka ciqaaba oo ciidankii dadku meeshay ka soo dhoweyn lahaayeen wuxuu ahaa ciidan loo tababaray inay dadkooda ciqaabaan argagixiyaan ninka askarigiina sida loo tababaray iyo waxa lagu habeeyo unbuu u dhaqmaa marka arrintii noocaas ahayd iyadana way soo afjarantay siminaari iyo xuquuqdii oo la barahayo iyo waxqabadkii dadkii baa lagu soo celiyey ta kale waxyaalaha la qabtay anigu muhiim aan u arko ee in la qiimeeyo u baahan maanta deegaanada kale markaan aragno deegaanka iyagu nabadgelyada meeshuu ka taagan yahay waa arrinta muhiim ah deegaanadii soo jireenka ahaa ee annaka naga horumarsanaa la odhanayay maanta waxay ku sugan yihiin dhibaatadii ku sugan yihiin waa la garanaya kililka iyaga laakiin maanta wuxuu noqday meesha kalaatee ammaan kale ee shirarka lagu qabto heer federaal inta u badan deegaanka iyagaa la keena oo waxaba ka abuurmaad odhanaysa iminka conference tourism waxa la yidhaaho adsabaa yaa ugu badan maanta deegaanada kale markaad aragtid conference tourismka magaalada ku xigtaayey jigjigay noqotay dadkuna hadduu nabadgelye haysto gaata waxaanaanu aaminsanahay waxa kaloo dhan wuxuu ka unkamaa uu ka dhasha nabadgelyada weyn taasi waa ta waxyaalaha muhiimka ee la qabtay xilligu waa kala wari xisaab xidh wixii wariyo deegaanku xal buu hele xasili nabadiyo ammaanka waxqabadyada xukuumaddani muddadii sanadka ayada ee joogtay ay qabatay ee taariikhda baalka dahabka ka gelaya ayaa waxaa ka mid ah heshiiskii nabadeed ee dhex maray dowladda federaalka tan deegaanka iyo ururka onlf oo halgan hubaysan kula jiray ethoobiya 7 sanno waxaana heshiiskaasi 21kii bishii oktoobar 2018 uu ka dhacay magaalada asmara ee xarunta dalka Eritrea waxaana xaqiiqa in heshiiskaasi nabadeed ay suuragal ka dhigtay isxilqaankii dheeriga ahaa iyo biseelkii hogaamineed ee hogaaminta sare ee xukuumadda iyo xisbiga dimuqraadiga Soomaalida ay u galeen kamira dhalinta heshiiskaasi nabadeed inkastoo xukuumaddu culays siyaasadeed iyo mid dhaqaalaba kala kulantay maalinta ururka ONLF nabadda qaatay waxa haddana ay xukuumaddu ku guuleysatay isla mar ahaantaana si geesinimo leh ku qaabishay dhammaanba hogaamintii waddanka uga maqnaa colaadda oo dib loogu soo celiyey deegaanka iyaduna si meeqaam sare ah loogu soo dhaweeyay hogaaminta sare ee ururka ONLF xarunta dalka magaalada Addis Ababa iyo xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga
waxaa maanta dhammaatay xilligii xaqiraadda iyo dilka iyo xabsiga iyo barakicinta iyo aragti xun baad leedahayda iyo caburistii shacabka ayaa maanta dhammaatay waxaan rabnaa shacabka nagu sida adduunka kale inay u noolaadaan si xor ah fikirkooda u soo jeediyaan si xora cidna ayna addoon u noqon marna ayna gumaysi qaayibin waxaan leenahay maanta waxaa inoo furmaysaa fursad cusub midnimo iyo iskaashi iyo wada jir haddaynaan iskaashanin oynaan wada jirin oo aynaan sidii awal hore halganka aynu ugu jiray dhismaha mustaqbalkeenna aynaan isu kaashanin guusha rasmiga ah ma gaadhayno guusha rasmiga ah isbedelka ka hor si deegaanka nabadgelyo waarta looga xaqiijiyo waxaa lagu dadaalaya xoog in la isticmaalo xukuumadda cusub balse nidaamka dimuqraadiyadeed oo si dhaba loo dhaqangeliyo ayaa nabadgelyo waarta deegaanka ka xaqiijin karta ayay aaminsan tahay iyadoo taa laga duulayo islamarkaana dowladda federaalka lala kaashanayo ayaa waxaa lala galay ururka ONLF heshiis ku salaysan dastuurka dalka iyo kan deegaankaba taasina dhinaca nabadgelyada wax weyn bay nagu soo kordhisay ururka ONLFna inuu si nabadgelyo ah oo dimuqraadi ah oo dastuurka wadanka waafaqsan inuu wadanka gudihiisa uga dhex halgamo ayuu go'aansaday heshiiskana qodobkaas ayaa ugu muhiimsan qodobada lagu heshiiyey ONLF heshiiska sababtii ay u qaadatay ee ahaa inay halgankeeda u bedesho non-violence ama halgan aan hubaysnayn iyadoo mabaadi'dii iyo waxyaabihii loo dagaalamaya ay sidoodii yihiin go-aankii ay ku qaadatay inay dalka Ethiopia heshiis kula gasho deegaankii ay u halgamaysay ay ku timaado natiijadii ay go-aanka u qaadatay wax fara badan bay ka heshay waxyaabaha ugu muhiimsan ee la taaban kara waxaa ka mid ah inay dalkii ku soo noqotay si nabadgelyo iyadoo u dagaalamaysa oo mabaadi'deedii u wadata oo hawsheedii u fushanaysa shacbigeedana u gaarsiinaysa fariintii ama ballantii ay u qaadeen waxaa kaloo qayb ka mid ah in noloshii iyo dhibaatadii cuslayd muddooyinkii ugu dambeysay ama 10 sano ugu dambeysay shacbiga sida xooggan u soo gaadhay inay wax badan ka bedelmaan waa guul ay ONLF soo gaadhay waxaan ognahay in nabadgelyadu ay tahay tiirka asaasiga ah ee nolosha nabadgelyo la'aan aysan jirin wax nolol ah ama wax horumar ah oo la taaban karo qofka bini aadamku inuu san waxba qabsanayn ONLF iyadoo danaynaysa bulshadeeda nabadgelyadan ay qaadatay waxay keentay maanta isbedel meel kasta oo kelirka doonaysid aad tagtid iyo walaaltinimadii dadkii isliin jiray iyo xalisay ta kale dawladdu ONLF waxay ku amaanan tahay inay garato bulshadeeda dhibaatada ka gaadhay si nabadgelyo ama mabda'eeda iyo waxay aaminsan tahay inay ku dhaqdhaqaaqdo oo qorigeeda dhigto oo maanta nabadan ay ka qayb qaadato way ku amaanan tahay dhanka kale dawladdu fursad iyo xaalad ONLF cuntami karaysa inay nabadgelyo ku dhaqdhaqaaqdo inay u abuurto lafteeda dawladdu way ku amaanan tahay oo wax u cuntamo oo nabadgelyo ay ku dhaqdhaqaaqi karayso xaalad iyo abuurtay dawladdu ONLFna way qaadatay labadu way ku amaanan yihiin marka door weyn bay ka ciyaarto maanta nabadgelyada deegaanka ka jirta corner kastoo doonaysid maanta waad u dhaqaaqi karaysaa faa'iidada uu keenay waxa ugu weyn waxa weeye horta waxa ugu weyn waxa weeye cabsi la'aan baa lagu joogaa qofka meel alla meesha doonu mari karaa nin baa hadda wuxuu igu lahaa tuulo heel baan tegay oo gidaarkan waxaan ka seexanayo bannaanka qof uu ka baqaya ma jirto caanaan doonto iyo geedaygina caana u doonto miyay dhici jirta ma dhici jirin jigsiyaa lagu nooleyn marka heshiiskaas waxaan leenahay ummadda soomaaliyana way ku faraxday xukuumaddana way ku mahadsan tahay inay soo dhoweysay oo ONLF maanta ay meesha doonto mari karto isbedelada dalkiiyo deegaanka ka dhacay waxay ilbaabada u ballaqeen furfurnaanta arrimo badan oo ay ka mid yihiin xuquuqaha dastuuriga ee xorriyatul qowlka oo muddo 27 sana si toos ah si dadbanba ay adkeed in muwaadiniintu fikirkooga iyo waxay aaminsan yihiin ay si cabsilaan oo cabiraan waxaana dhacday dad badan fikirkooga oo ay cabireen kaliya inay ku mutaystaan xabsiyo xuquuqdoodii laga xayuubiyey
lagu jirtilay amaba cabsi ay naftooda u cabsanayaan awgeed ay dhulka ay jeclaayeen uga carareen hase haatee isbeddelka kadib qof kasta aragtidiisa sax iyo khalad waxay haataba uu cabbiraa dowladdana wuu dhaliilaa lamana sheegin weli dad loo xidhay ama loo waxyeelay aragtidoodu ay cabreen inkastoo ay jiraan dad si qaldan u adeegsada xorriyatul qowlka waxaana xusubdu waqti xaadirkan in deegaanka ay ka howlgalaan saxaafadda madaxa bannaan oo warbixinno iyo barnaamijyo si xor ah uga diyaariyeen xaaladda dhabta ee deegaanku ku sugan yahay markii xubnihii dib loo xulaye wagaal xilkasii xukunka qabtayba xerkiyo sharcigiiyo xalkii yimido dadkii afxidhnaa horay u hadleen xukuumadda cusub waxay xoogga saartay in dastuurka si dhaba loo dhaqangeliyo oo la xaqiijiyo sarreynta dastuurka xuquuqo fara badan oo dastuurka ku cad ayaa jira xuquuqaha aadamiga iyo kuwa dimuqraadiyadeed hadday tahay xorriyatul qowlka in la joojiyo falalka bani aadamnimada ka baxsan iyo wixii lamid ah kolkaa dastuurka dalka iyo kan deegaankaba deegaanka soomaalida gudihiisa in si dhab ah looga dhaqangeliyo xukuumadduna waajibaadka ka saaran dhaqangelinta dastuurka sidii la rabay inay u gudato shacabkana in dastuurka lagu baraarujiyo xuquuqaha dastuurku u ogolaaday shacabkana in loo sugo loo ilaaliyo ayay xukuumaddan ku dadaashay kolkaas sarreynta dastuurka in la xaqiijiyo waa qodob muhiima oo xukuumaddan ay ku faanayso halkii sano ee ay jirta qofku dhibaatadiisa uusan sheegan jirin waxa dhabtay ka jirana ma sheegi jirin waxa uu rabo ama ka maqanna ma sheegi jirin waxaa la arki jiray dad ama maamul deegaankii uu joogo abaar ka jirto ama colaad ka jirto ama dhibaato kaloo dadkii loo geysanaya ka jirto oon hadli karin maanta markaad aragto in yar oo dhibaato ah ama meediyaad ka sheegi ama meeshii ay khusaysay baad la xidhiidhi marka in bini aadmigu dhibkiisa sheegan kara iyo rabadiisa waa shayga koowaad ee xorriyadda ah ama baahida ah horta inuu gaajaysan yahay inuu xanuunsan yahay inuu col hadday colaad ka cabsanayo inuu qofku u sheegan karaa muhiima marka in xuquuqul xorriyatul qowlkii la helo waxay macnaheedu ka mid tahay xuquuq aasaasi ah oo qofka ibni aadamku u baahan yahay xaqna u leeyahay in loo fasaxay dee faa'iidooyinkeedu aad bay u badan yihiin wax badanna waa lagu hagaajin karaa isbeddelada kale ee la taaban karo ee ka dhacay deegaanka waxaa ka mid ah in hay-adaha dawligu ay adeegsadaan awoodaha dastuurku siiyey waxaa meesha ka baxday faragelintii iyo waxyoorintii laamaha kala duwan ee dawligu ay kala kulmi jireen madaxda haysa xilalka sare waxaan tusaale u soo qaadan karnaa golaha baarlamaanka oo haysta codka shacabka deegaanka ahna awoodda ugu sarraysa baarlamaanku muddo dheer waxa uu ahaa mid afduuban oo aan adeegsan karin awoodaha dastuurku siiyey ee la xisaabtanka hay-adaha fulinta iyo garsoorka ha yeeshee laga soo bilaabo ansixinta dawladda cusub qorshaha xukuumadda iyo la xisaabtankeedu qaabka ay u fuleen miisaaniyaddii uu ansixiyey iyo weliba dabagalka fulintu waxay ahaayeen kuwo si cad loo arkayey muddadii sanadka ahayd ee xukuumadda cusub ee xilka haysay waxaana in hoosta laga xariiqa mudan in doodo adag ay ka dhasheen ajandayaal kala duwan oo xukuumaddu horgeysay baarlamaanka muddo dheer kadib shacabka deegaanka soomaalidu waxay si madax bannaan u adeegsadaan diinta iyo caaqidada ay aaminsan yihiin iyadoo ayna wax faragelina uga imanaynin dhanka dawladda xor bay u yihiin dadku diintoodii way u madax bannaan yihiin dhaqankii way u madax bannaan yihiin xeerarkoodii iyo wixii iyagu lahaayeen inay isku dhaqaan hadday diin isku dhaqahayaan oo ku shareecatamahayaan iyo hadday waxyaalihii sulax ahaa ee sooyaalka u ahaa ee dhaqanka ahaa ay ku dhaqmahayaan intaba way u bannaan tahay waana loo banneeyey wax ka hortaaganna ma jiro xukuumadda ayaa albaabada u laabtay jeelkii dhexe ee loo yaqaanay jeelowgaadeen una beddeshay madxaf lagu xusuusan doono gaboodfalyadii kala duwanaa ee gudihiisa loogu geystay qaar ka mida muwaadiniinta deegaanka iyadoona la sii daayey dhammaan maxaabiistii siyaasadeed ee ku xidhnaa jeelasha kala duwan ee deegaanka halaag meel dadka lagu halaagayo oo la xiro waad garan kartaa qofka wuxuu dareemayo wuxuu dareemayaa in dadnimadiisii soo noqotay xitaa in uusan maanta cabsanayn inaan mar dambe la dhahayn jeeloogaadeen baa hebel lagu ciqaabaya way dhammaatay taas xidhitaanka jeeloogaadeenna waxay ka dhigan tahay marka horeba in dadkeennii ay aaminaan dawladdani dawlad dadka u dhalatay in ay tahay
dawlad ka damqanaysa dhibaatooyinkii soo gaadhay inay tahay dawlad la jaan qaaday isbedelada Itoobiya oo dhan ka dhacay ee lagu sii daayay dadkii sida xun loola dhaqmayay xukuumadda cusub waxay boorka ka jaftay oo ay soo celisay xiriirkii xumaaday ee dawladda iyo hay'adaha caalamiga deeq-bixiyaasha iyo kuwa maxalliga oo mugdi ku jiray muddo badan kadib markii xukuumaddii hore ay ka mamnuucday inay ka howlgalaan deegaanka waxaa xusid mudan in hay-aduhu ay dib u bilaabeen howlihii samafalka iyo bani'aadamtinimada waxayna dawladda ka caawiyaan dhinacyada gargaarka iyo horumarka waxaana tusaale loo soo qaadan karaa in madaxweyne Mustafa uu xafiiskiisa ku qaabilay danjirayaasha wadamada deeq-bixiyaasha oo ka badan 25 think of first page of course was to make a courtesy call on the president and to listen to him and have discussions with his team. ujeedkayaga guud ee booqashadani waxay ahayd inaanu la kulanno madaxweynaha lalan yeelano isaga iyo dawladdiisa wada hadal fiican sidii hadda idiin muuqatana waxa aanu yeelanay wada hadal ku saabsan arrimaha deeq-bixinta iyo caqabadaha guud ee dawladdan cusubi ay wajahayso tallaabooyinkii ay qaadi lahayd markaad eegto dawladdan keliya jirta 2 bilood waxa ay qabteen shaqooyin aad u wanaagsan waxayna mutaysteen in ay la shaqayso kaliya ma aha hay'adaha qaramada midoobay ee xataa bulshada heer caalami oo dhan diblomaasiyiinta caalamiga ah ee deegaanka booqashada ku yimidna waxa ugu miisaan cuslaa danjiraha Mareykanka Michael Reiner oo deegaanka 2 jeer booqasho ku yimi in bringing a new vision of openness, of inclusiveness within the various clans and elements of the region to bear both in the government and giving a voice to them in the broader society. waxa wax lagu farxa ah muhandisnimada iyo furfurnaanshaha iyo sidii uu u maareeyay madaxweynuhu dhibaatadii ay keeni lahayd qabaa'ilada kala duwan ee deegaanka oo ku dadaalay sida ugu macquulsan in ay uga dhex muuqdaan reeraha deegaanka maamulka sare ee deegaanka iyo in xuquuq la siiyo dhammaan bulshada deegaanka waa fikir iyo falcelin aad u muhiim ah waxaana aad ugu dhow yahay aragtida ra'iisul wasaaraha dalka Dr. Abiy Ahmed uu ku hagayo dhammaan dalka kadib dhismihii dawladda iyo saludhigida qaab dhismeedka heerarka kala duwan waxay xukuumaddu dib u habeen ku samaysay qorshihii sanad miisaanadka 2011 si loogu jaangooyo baahiyaha asaasiga ee deegaanka ka jira xafiisyada iyo laamaha kala duwan ee dawligu heerarkooda kala duwan waxay bilaabeen in qorshayaasha lagu sarjaro awoodda la haysto oo ciidda fulinaysa qorshaha iyo miisaaniyadda si loogu taabageliyo waxaana xukuumaddu miisaaniyadda ugu badan u qoondaysay sektorka arrimaha bulshada maadaama qodobkani uu yahay mid nolosha muwaadin kasta saameyn ku leh biyaha oo aasaaska nolosha iyo xukuumadda cusubi mudnaan gaara siisay iyadoo miisaaniyad dheeriya oo 200 milyan oo bir ugu dartay sektorka biyaha si jawaab degdeg ah looga bixiyo oonka ka jira miyiga iyo magaalooyinka oo ah baahida koowaad ee ka jira deegaanka inkastoo xukuumaddii hore biyaha u qaadatay mudnaanta koowaad ilaa iyo afraad miisaaniyadda ugu badanna ku bixisay abaabul badanna ay ka samaysay haddana marka hoos loo dhaadhaco waxay isku biyo shubteen in inta ugu badan mashaariicii biyuhu ay fashil ku dhamaadeen waxaa xusid mudan in daraasaad la sameeyay kadib la ogaaday in heer daboolka magaalooyinka biyuhu u dhan yahay 20% halka miyiga oo ah sabooyinka ay ku nool yihiin bulshada ugu badanna heer daboolka biyuhu aanu ka badnayn 18%. dhinaca biyaha dano imaado isbedelkii kadib miisaaniyaddii sektorka biyaha kor baa loo qaaday markii aanu nimid miisaaniyadda golaha xildhibaanada waa laga ansixiyey dib baanu u fiirinay qorshihii dib u habeyn baanu ku samaynay waxbarashada 150 malyan oo bir baanu ugu darnay halka biyahana 200 oo malyan oo dheeraada loogu daray lacagtaasna hawlo aan waxtar sidaas u lahayn bulshada deegaankeena loo qoondeeyay halkaas aanu ka soo jaray sektarada muhiimka aanu u qoondeynay iyadoo deegaanku soo maray marxalad adag oo burbur dawladeeda ayaa haddana waxay xukuumadda deegaanka Soomaalidu ay ku dhiiratay in magaalada Jigjiga oo burbur weyn uu soo gaadhay 4 August ay martigeliso xuskii 8aad ee forumka magaalooyinka dalka iyadoo xukuumaddu arrintaasi dadaal ballaaran u gashay waxaana ku guuleysatay martigelinta xuska 8aad ee forumka magaalooyinka dalka oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahayd madaxweynaha dalku iyadoo xuskaasi uu dhacay qaab qurux badan oo wax badan ka bedelay aragtidii laga qabay deegaanka dibna u soo nooleysay kalsoonidii shacabka dalku u hayeen shacabka Soomaalida
munasabada qarawa waa maalintii magaalooyinko isha weeye mudan. xukuumaddu waxay xoogga saartay in kor loo qaado sumcadda iyo muuqaalka ama imageka deegaanka. kolkaa munaasabado heer qarana oo kala duwan ayaa deegaanka sanadkii lasoo dhaafay lagu qabto. ujeedada laga ahaana waxay ahayd imageka deegaanka oo xumaaday, muuqaalkii sumcaddii deegaanka oo isbedelkii ka hor qalalaasihii siyaasadeed ee dhacay iyo dhibaatooyinkii shacabka loo geystay ay dhaawac weyn u geysteen in dib loo soo nooleeyo sumcaddii shacabka Soomaaliyeed in kor loo qaado. yahay ujeedadu. kolkaa hawlaha laga qabtay waxaa ka mid ah xuskii toddobaadka ama forumka magaalooyinka ee Jigjiga lagu qabtay oo ay kasoo qayb galeen dad aad u fara badan. kolkaa shacabka deegaanku si wanaagsan bay usoo dhaweeyeen. muddadii ay martida nala joogteen run ahaantii aad iyo aad bay u faraxsanaayeen soo dhaweynta loo sameeyey iyo guud ahaan xaaladda nabadgelyo ee deegaanka ka jirta. waxaa kaloo lasoo qaadan karaa socdaalkii nabadda ee Lucy ee lagu qabtay magaalada Jigjiga oo dad fara badan kasoo qayb galeen. sidoo kale tartankii gabdhaha heer qaran ee lagu qabtay Jigjiga. isla markiiba xukuumadda cusub waxay bilowday inay u dhaba gasho xaaladda nololeed ee bulshada deegaanka iyo inay xukuumadda iyo shacabku isbartaan. safarkii ugu horreeyay madaxweyne Mustafa uu anbabaxay Jigjiga wuxuu ku gaaray magaalada Qabri Bayax waxaana wada tashiyo la yeeshay shacabka ku dhaqan magaaladaasi. xilliyo kala duwan ayaa xukuumaddu safaro kala duwan ku gala bixisay gobolada deegaanka iyadoo ka soo wada tashiyada shacabka iyo xukuumadda uu madaxweynuhu dhagax dhigay mashaariic isugu jira cusbitaallo, biyo gelin, wadooyin, warshado, xarumaha waxbarashada. waxaana xusid mudan in mashaariicahan dhismahooda u soo tartameen ganacsatada deegaanku iyadoo waqti xaadirkana dhismayaasha warshada malabka ee Fiiq iyo cusbitaalada Garba iyo Shinila uu dhismahoodu meel wanaagsan marayo, halka kuwa kalena oo bilow wanaagsan ka jiro rajo weyn ee ka qaban shacabka deegaanku. iyadoo laga duulayo qorshaha xukuumadda isbeddelka iyo xoojinta kabayaasha dhaqaale ayaa waxaa si joogto ah loo sameeyey qiimayn, kormeer iyo dabagallo adag si looga saaro shacabka dhibaatooyinka adeegyada Ethio Telecom iyo elektriga. waxaana lagu guulaystay dhammaystirka mashruuca ugu weyn ee laydhgelinta magaalada Dhagaxbuur, waxaana xadhigga ka jaray madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar. oo waxqabad muuqda oo inkastoo hawsha badankeedu naga horreeyey oo dawladda federaalku ay gacanta ku haysay badankeeda, haddana curyaamin kale ay ku socotay in aan maaragtay maanta nasiib u yeelanno intii u dambaysay ee 7 bilood u dambaysay inaan kaalintaan ka qaadanay oo joogno aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. mid ka mid ah natiijooyinka ugu waaweyn ee xukuumadda deegaanka Soomaalidu muddadii sanadka ay joogtay ka qabatay dhanka nabadgelyada ayaa ah xalintii khilaafkii iyo isku dhacyadii gacan ku rimiska ahaa ee u dhaxeeyay qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada, iyadoona shirar nabadeyn iyo xiriir isdhexgala labada qoomiyadood hogaamintooda sare iyo shacabkuba ay ku yeesheen caasimadaha labada deegaan ee magaalada Jigjiga iyo magaalada Adama. talabadaasina waxay soo celisay rajada wada noolaanshiyaha ee qoomiyadaha dalka, gaar ahaanna wada noolaanshiyaha iyo xiriirkii walaaltinimo ee taariikhda lahaa ee ka dhaxeeyay Soomaalida iyo Oromada. isbedelka ka hor isku dhicii gacan ku rimiska ahaa, gacan ku samayska ahaa, artificialka ahaa labada qowmiyadood ka dhexdhacay waan xasuusanaa. kolkaa taas in meesha laga saaro shacabka Soomaalida iyo shacabka Oromadu dhinaca bulshada, dhaqaalaha iyo dhinac walba wax badan bay wadaagaan. shacab kala maarmaya maaha. waxaanu wadaagnaa xuduud ka badan 1400 kilometer. saas darteed in xiriirka iyo iskaashiga labada shacab la adkeeyo, labada shacab danbay u tahay. kolkaa wada hadal la sameeyay hogaaminta sare ee deegaanka Oromia iyo sidoo kale fagaarayaal kala duwan oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulsho ee labada dawlad deegaan ayaa waxa lagu gaaray heshiis run ahaantii natiijooyin wax ku ool u soo hooyay deegaankeena
isku dhicii gacan ku rimiska ahaa gacan ku samayska ahaana meesha ka saaray isdhexgalka shacabkana adkeeyey xukuumadda cusub waxay dadaal xooggan u gashay sidii la isugu soo dhoweyn lahaa qoomiyadihii la dhex dhigay sheeka baraleyda isla markaana xumaanta loogu kala sheekeeyey sidaa darteed wafdi ballaadhan oo hogaaminaya madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida waxay socdaal shaqo ku tageen magaalada Bahardar ee dowladda deegaanka Axmaarada si loo xoojiyo xiriirka labada shacab ee Axmaarada iyo Soomaalida geesta kale madaxweynaha oo ka qayb galay xaflad qalinjabin ah oo loo sameeyay in ka badan 9 kun oo arday oo jaamacadda Bahardar ayaa waxa madaxweynuhu halka ay jaamacaddu ku guddoonsiisay bilad sharafa waxaan ka dhashay qoomiyadda Axmaarada hooyaday waa Soomaaliyeed boqolkiiba 50 waxaan hay Soomaali boqolkiiba 50 waxaan hay Axmaar dadka marka aniga darkaysay dhalay waa imid waxay anno sharaf igu jirtaa markay isku soo dhawaadaan sharaf iyo waxay tahay arrin aan marnaba halkan aan shucuurtayda aad buu loogu kacsan tahay ma soo koobi karo isla halgan gudaha kadib iyo daahitaan kolba ku imanayay qabsoomada shirweynaha xisbiga waxa ugu dambeyn qabsoomay shirweynihii tobnaad oo markan lagu qabtay magaalada Jigjiga taariikhdu markay ahayd 1 Abriil 2019 isla markaana laga soo saaray go'aano wax ku oolay ka mid yihiin in magaca xisbiga laga dhigay xisbiga dimuqraadiga Soomaalida astaantii xisbiga oo wax laga bedelay xuskii dabaaldegiisa oo dhowr sano loo dabaaldegay 28 Kaatiid ayaa lagu soo celiyay 20 sano oo ahayd xilligii rasmiga ahayd ee xisbiga la asaasay barnaamijka siyaasadeed iyo xiroosaadka xisbiga ayaa dib u habeen lagu sameeyay waxaana xubnaha ergooyinku ay doorteen golaha dhexe iyo guddiga dabagalka iyadoo golaha dhexena ay sii doorteen guddiga fulinta xisbiga oo ka kooban 9 xubnood waxaana xisbigu waqti xaadirkan dadaal xoogan ugu jira inuu ku biiro ururka EPRDF oo waqti xaadirkan uu leeyahay bahwadaag sidoo kalena waxa xisbigu jeexay qorshaha xukuumadda iyo xisbigu ay ku shaqayn doonaan sanadka 2012 gabagabadii shirweynaha xisbiga dimuqraadiga Soomaalida waxa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha dalka Dr. Abiy Ahmed si uu ugu hambaliyay guusha uu shirweynuhu ku dhamaaday xisbiga dimuqraadiga Soomaalidu ducaan ku xambaarinay xilka dadku ku igmaday intaad xagal daaca ka dhowrtaan xujiya midnima macaani waxbarashada oo ah furaha nolosha iyo albaxnimada waxay ka mid ahayd qodobadii ay xukuumadda cusub mudnaanta siisay si loo xaqiijiyo tayada waxbarashada waxaa kor loo qaaday miisaaniyadda oo ahayd 150 milyan iyadoo la gaarsiiyay 308 milyan oo bir xukuumadda cusub waxay ku guuleysatay in sanad miisaanadkii 2011 ay deegaanka ka taabageliso tiradii dugsiyada ay ugu badnayd 221 dugsi hoose dhexe oo cusub ayaa dhismahooda laga farxashay 150 ballaadhin ayaa lagu sameeyay halka 80 dayactir lagu sameeyay 22 dugsi sare oo cusub ayaa dhismahooda laga bilaabay deegaanka iyo ballaadhinta 24 dugsi oo la filayo sanadda 2012 inay howlgalaan macallin dhisan maadaama uu soo saari karo arday tacliin huwan waxaa tababaro la siiyay in ka badan 3400 oo isugu jira maamulayaal macallimiin kormeerayaal iyo khabiiro barayaal cusub oo ka badan 2200 ayaa lagu shaqaaliyay dugsiyada deegaanka iyadoo kuwa cusubna ay sanadkan qalinjabiyeen xoogihii been abuurka ahaa ee herdaboolka waxbarashada ayaa sixitaan lagu sameeyey kadib daraasaad waxaa la ogaaday in herdaboolka dugsiyada hoose dhexe ee deegaanku ay tahay 57% 2011 waxaa si adag loola halgamay ku tirsanaanta ardayda isku halleynaysa qishka imtixaanada heer qaran waxayna 2011 ay ardayda imtixaanaadka u fadhiisteen iyagoo aqoontooda ku kalsoon waxaa sanadkan 2011 la aasaasay sanduuqa horumarinta waxbarashada oo looga dan leeyahay kor u qaadida daryeelka macallimiinta manhajka iyo tayada waxbarashada tababarada xirfadaha iyo farsamada gacanta si loo dardargeliyo 20 kuliyadood ee ka jira deegaanka oo 13 ka mid ah dawli yihiin 7 ayeen kuwa gaar loo leeyahay ayaa waxa wax ku barta arday ka badan 8,000 oo arday kuliyadaha dawliga si shaqooyinkooda waxbarasho ayaan u noqdaan kuwa natiijo la taaban kara laga soo hooyo waxaa loo qabtay 50 milyan oo dheeraad ah si loogu maareeyo agabyada kala duwan ee kuliyadahan ay ku shaqeeyaan ardaydana wax ku baraan
kala diiro dadaal wadanimo dalkani ku dhiso aqoon dugsado dunida la tartama aqoon dugsado dunida la tartama sanadkii ay xukuumaddu jirtay dhinaca waxbarashada waxaan xooga saaray in kor loo qaado tayada waxbarashada si tayada waxbarashada kor loogu qaadana waxaa laga maarmaana in la helo dugsiyo tayo leh dugsiga in la tayo waxaa ka horeeya marka hore dugsigii in la helo kolkaa dhinaca dugsiyada dhibaatooyinka ka jira ay xukuumaddu darastay kolkaas sanadkii lasoo dhaafay 446 dugsi oo isugu jira kuwa cusub kuwa la ballaarinayo iyo kuwa la dayactirayo ayay dhismo ku waday xukuumaddu 221 dugsi oo dugsiyada hoose dhexe ah ayaa dhismahooga la dhammaystiray halka 145 dugsi ballaarin lagu sameeyey 80 dugsina la dayactiray oo dugsiyo hoose dhexe ah intaas waxaa dheer 21 dugsi oo dugsiyo sare ah dhismahooga in la bilaabay sidoo kale 24 ama 24 dugsina dugsiyo sare in ballaarin lagu sameynayo taasi waxaan aaminsanahay dhinaca kor u qaadida tayada waxbarashada inay wax badan ka tarayso xafiiska magaalooyinku waxa ay qorshahagaha casriga ah ee magaalooyinka u sameeyeen sanadkan magaalooyinka kala ah Qalaafo, Biki, Beercaano, Xarshin, Shilaabo, Gaashaamo iyo Doolacado. Sidoo kale waxaa meel fiican maraya fulinta qorshahagaha magaalooyinka Danood, Booq, Dhooboweyn, Ceelweyn, Guradhaam, Mooleh iyo Baaray halka la dhammaystiray daraasada qorshahagaha casriga ee magaalooyinka kala ah Mayamuluqo, Lagahida, Qubi, Salaxaad, Dhuxun, Galaadi, Daraatoole, Ceelkari, Iimay Galbeed, Gurabaqaqsa, Dhakaasuufti, Qarsaadu, Feerfeer, Iimay Bari iyo يعب xukuumadda deegaanka Soomaalidu waxa ahmiyad weyn siisay dhismaha wadooyinka laameyda oo tayadeeda laga baarandegay sanadkan waxaa jidad laamaya oo dhererkoodu dhan yahay 9.24 kilomitir laga bilaabay magaalada Jigjiga halka magaalooyinka Goda iyo Dhagaxbuur loo qorsheeyay dhismaha 6 kilomitir lana bilaabay hawlahooda shaqo lixda maamul magaalo ayaa waxaa laga fuliyay jidadka dhagaxa qoran ee Cobblestone-ka loo yaqaan oo dhererkoodu dhan yahay 15.4 kilomitir iyo wadooyin Chaya oo dhererkoodu dhan yahay 67.94 kilomitir kuwaas oo isu socodka bulshada wax badan ka taraya waxa shaqaabuur loo sameeyay in ka badan 61 oo qof kuwaasi oo looga sameeyay qaybaha shaqaabuurka kala duwan xukuumadda ayaa barnaamijyada horumarinta magaalooyinka waxa ay ka bixisay lacag deyma oo dhan 265 milyan 143,680 bir kuwaas oo fursado shaqo loogu abuurayo dhalinyarada iyo dadka danyarta ah horumarinta adeegyada caafimaadku waxa uu tiir weyn ka yahay siyaasadda xisbiga dimuqraadiga Soomaalida sida daraadeedna muddadii sanadka ahayd ee xukuumadda madaxweyne Mustafa ay joogtay waxa la dhammaystiray 122 dhismayaasha rugaha caafimaadka waxaana la bilaabay dhismayaasha cusub ee cusbitaalada Garba iyo Shiniilo oo madaxweynuhu soo dhagax dhigay kuwaas oo waqti xaadirkan meel fiican maraya halka dhismayaasha cusub ee xarumaha dhiiga ee Fiiq Goday Hargeysa iyo Jigjiga ay dhamaadeen 100% xarumaha caafimaadka kala duwanna waxa lagu meelay xirfadlayaal caafimaad oo ay tiradoodu dhan tahay 938 oo ay kamid yihiin 70 dhakhaatiir guuda iyadoona tababaro kala duwan la siiyay khabiiro iyo xirfadlayaal caafimaad oo gaaraya 2600 oo xubnood dhinaca caafimaadka cusbitaallo cusub oo la bilaabay baa jira sida cusbitaalka Garbo, Shiniile iyo Kowardheer oo dhawaan la bilaabi doono health centero ama xarumo caafimaad oo dhismahooga la dhammaystiray qaarkoodna socdaan 122 rugo caafimaad oo sanad miisaaniyadka 2011 la dhisay oo mustaqbalka dhow la hawlgelin doono iyo wixii kamid ah ayaa dhinaca caafimaadka laga qabtay waxa inta dheer xarumo caafimaad cusbitaallo xirfadlayaal caafimaad la'aan awgeed aan adeegii loo baahnaa aan bixinayn baa jiray kolka trakoobkii lagu sameeyay xarumaha caafimaadka shaqaalaha ka shaqeeya iyo gaabka goldololaha ka jira dhinaca xirfadlayaasha caafimaad iyadoo laga duulayo ayaa sanadkii la soo dhaafay 938 xirfadlayaal caafimaad la hawlgeliyay 70 kamidana ay yihiin dhakhaatiir sidoo kale shaqaalaha caafimaadka in awoodooda fulineed kor loo qaado si adeeg tayo leh oo hufan ay shacabka ugu fidiyaan baa lagu dadaalay kolka mustaqbalkana dhinaca kor u qaadida tayada caafimaadka
xoogaa la saari doonaa. kale adeega daaweynta qalliinka indhaha maqaarka yeelkaha oo olole laga sameeyey 8 magaalo ayaa waxaa lagu guuleystay inay ka faa'iideystaan adeega daaweynta iyo qalliinka dad ay tiradoodu dhan tahay 10180 qof halka adeega xarumaha urleyda looga faa'iideeyay haweendan 29578 qof sidoo kalena waxaa dhallaanka iyo carruurta looga faa'iideeyey adeegyada isku dhafka ah ee dhammaanba ka hortagga cudurrada waxaa kaloo sanadkani qabsoomay oo la sameeyey 50 ruga caafimaad oo loogu talagalay xoojinta adeega daaweynta cudurrada qaaxada 100% dhammaaday adduunka dhan waa la arkay maanta iska daa ku darimateeda waa farxad ilaahay baa mahadle laba sannadood ishayda waxba alla waxaan ka arki jiray ma jirto laba sana alxamdulillah ilaahay maanta waxaan ugu mahadnaqayaa tii aan islahaa tana waca tii kale ka wax badato maanta ka wanaagsan tii aan waxba ku arkayn baan si dhaba wax uga arkayaa mashaariicaha biyo-gelinta ee magaalooyinka jigjiga goday qabri dahar iyo mugweyn fiiqa ayaa qaarkood gabagaba ay marayaan halka qaarkoodna dhismahoodu meel wanaagsan u marayo mashaariic fara badan baa la fuliyey 122 ila biyood oo aan shaqaynayn baa laga shaqaysiiyey 39 ceelasha dhaadheer oo cusub baa la qoday 18 qodasti waa lagu jiraa sidoo kale mashaariic kala duwan oo biyo-gelina ayaa deegaanka sanad miisaaneedkii 2011 ama sanadkii ay xukuumaddu jirtay laga fuliyey qaarkoodna dhismahoodu socda kuwaasoo aaminsannahay in heer daboolka biyaha nadiifta ee la cabo ay kor u qaadi doonaan kolka biyaha nadiifta ee la cabo inay shacabku helaan waa arrimaha aanu ahmiyadda siinay shaqooyin muhiimana aanu ka qaban dhanka ganacsiga xukuumaddu iyadoo ka duulaysa baahida bulshada deegaanka Soomaalidu u qabtay nidaamka ganacsiga xorta ah ayaa waxay gabi ahaanba meesha ka saartay ganacsiga xadidnaa dadka gaarka ahna u xidhxidhnaa waxaana la xoojiyay ganacsiga ku dhisan suuqa xorta ee ay fursadihiisu muwaadiniintu u siman yihiin arrintan ayaana saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqa ganacsiga lagu tartamo dhinaca dhaqaalaha xukuumaddu waxay ku dadaashay inay deegaanka ka dhaqan geliso sida dastuurku dhigayo nidaamka suuqa xorta ah ganacsigu inuu xor noqdo isbedelka ka hor dad fara ku tirisa ayaa ganacsiga deegaanka gacanta ku hayay waxaan xasuusanaa dhammaan wax soo saarka warshadaha looma ogolayn shacabka deegaanku si xor ah inay uga ganacsadaan shakhsiyaad fara ku tirisa oo xukuumadda xidhiidh la leh mid qaraabo iyo mid dhaqaale ku salaysanba ayaa gacanta ku hayay oo loo ogolaa kolka tii meesha waa laga saaray ganacsigii inuu xor noqdo shacabku si sharciga waafaqsan oo xor ah inay u ganacsadaan baa loo ogolaaday maanta si xor ah ayaan u ganacsanayaa wax kasta halkaas ii yaala wakaad aragtay gurigii baan hortaagnahay wax walba maaragtay si waxaan free baan u nahay xukuumaddu waxaa dadaallo horla u gashay in shacabka Soomaalida ay ka soo barakacay gudaha deegaanka Oromiya iyo xuduudka labada deegaan loo sameeyay nolol degan oo rasmiya waxaana goobi ay ka soo barakaceen oo xadka labada deegaan lagu celiyay bulsho ka badan 350,000 waxaana guryo looga dhisay in ka badan 20 goobood oo ku kala yaala deegaanka 290,000 oo qof oo la filayo in dhawaan guryo rasmi ah yeelan doonaan maadaama ay xooluhu udubdhaxaad u yihiin nolosha bulshadeenna xukuumaddu waxa ay fiiro gaara siisay xanaanada xoolaha iyadoo la fuliyey oo la ballaadhan oo daaweyn iyo tallaalka xoolaha loogu samaynayey waxaana la tallaalay meesiyada kala duwan oo xoolaha oo dhan 12,882,000 kuwaas oo laga tallaalay cudurrada xadka ka gudba cudurrada safmarka infekshinka iyo maqaarka waxaa kaloo sayladaha xoolaha laga dhisay 6 degmo oo kala ah garbo qabri bayax boqol maayo dhar wanaaje fiiq iyo gaashaamo iyadoo sidoo kalena goobo kala duwan laga wado dayactirka sayladaha xoolaha waxaa sidoo kale dhanka xoolaha sanadkan laga qabtay dhismaha 6 baqaar oo calafka xoolaha lagu kaydinayo waxaana dhabaaday 2 kamid ah oo ku yaala jigjiga iyo goday halka calafka xoolaha ee tayeysan sanadkan la beeray dhul dhan 4,000 oo hektar oo ku yaala goday jarati iyo hargeelle arrinta ayaana wax ka tari doonta u diyaar garowga daaqyaraanta xilliyada abaaraha waxaa sixitaan lagu sameeyey tirooyinkii bambuuninta ku jirtay ee yoolasha khayraadka dabiiciga ha tusaale haddii aan soo qaadanno tirada ka faa'iidaystayaasha fidinta beeraha oo ahayd 504,870 ayaa daraasaad kadib waxaa la ogaaday inay noqotay 217,290 si kor loogu qaado wax soo saarka beeraha waxaa xafiisku gaarsiiyey 37 degmo 2,735 kintaal oo abuurka kala duwana si ay ugu beertaan 3,920 hektar qoysas tiradoodu ay dhan tahay 3,920 waxaa shaqaabuurka miyiga loo sameeyey 11,214 shirkadood oo ku howlan
xoolaha beeraha khayraadka dabiiciga iyo ka ganacsiga beeraha waxaa la soo iibiyey 19 qalabka mashiinada oo isugu jira kuwa qodaalka iyo goynta loo adeegsado sidoo kale waxaa la soo gaday 37 mashiin oo ah kuwa kala saara lafaha iyo midhaha dalagga beeraha dhanka jidadka ayaa waxa ay sanadkan xukuumaddu ka qabatay 22 mashruuc oo 16 ka mid yahay cusub yihiin halka 6 ka midina ay yihiin dayactir kuwaas oo meel fiican maraya sidoo kale waxa wadada laamida isku xidha qabri bayaxya harta sheekh ah oo dhererkeedu dhan yahay 22 kilomitir ay maraysaa meel wanaagsan xukuumadda deegaanka Soomaalidu iyadoo ka duulaysa baahida dhanka jidadka ayaa waxa ay sanadkan xiriir la samaysay wakaaladda jidadka ee federaalka iyadoona kala xaajootay sidii deegaanka loogu kordhin lahaa mashaariicaha laamiyada dhaadheer iyo buundooyinka isku xidha magaalooyinka waaweyn iyo gobolada deegaanka arrintaas oo natiijo wanaagsan laga fili doono waxaana sanadkan xusud mudan dhanka jidadka in madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo mas'uuliyiin heer federaali ay xadhiga si wada jir uga jareen wadada laamiga xawliga sare lagu maro ee Dirdhaba ay shacabda wanle oo dhererkeedu dhan yahay 220 kilomitir taasoo ay dhalinyaro 179 qof oo u dhalatay deegaanka Soomaalidu ay shaqo abuur ka heshay dhinaca kale dhinaca jidadka hawlaha muhiimka ah xooga saaray ayuu jidkuna ka mid yahay 15.8 kilomitir oo laamiya oo cusub baa maamul magaalooyinka Jijiga Dhagaxbuur iyo Guday laga bilaabay kuwaas oo dhismuhu socdo muddana qaadanayo sidoo kale 168 kilomitir oo wadooyin jaya deegaanka sanadkii la soo dhaafay laga dhaqan galiyay qaarkood way dhamaadeen qaarkoodna dhismuhu uu socdaa dhinaca kale waxaan xiriir adag la yeelanay wakaaladda jidadka ee federaalka salooda ogsoon yahay hadda ka hor xiriirka dawladda deegaanka Soomaalida iyo xafiisyada ama wasaaradaha ee federaal uu liitay taasna waxay sababtay mashaariic fara badan oo deegaanada kale ka faa'iideysteen inuusan deegaankeenu ka faa'iideysan xiriirkii aan la sameynay ayaa waxay sababtay in mashaariic fara badan oo dhinaca jidadka deegaankeena laga fuliyo isugeyn 1424 kilomitir oo jidada oo u badan laami ayaa deegaankeena dhismuhu ka socda 220 kilomitir jid ah uu dhamaaday kuwa kalena dhismuhu baa socda mustaqbalkana waanu sii xoojin doonaa haweenka iyo dhalinyarada oo ah tirada ugu badan bulshada deegaanka ayaa xukuumaddu waxa uga faa'iideysay fursadihii shaqo iyo adeegyada kala duwan ee deymaha waxaa sidoo kale la siiyey tababaro kor lagu qaadayo garaadkooga dad tiradoodu ay ka badan tahay 52,000 oo qof oo isugu jira haween iyo dhalinyaro isla markaan lagu tababaray mawduucyo kala duwan 2011 waxay Somali Microfinance ama ahaan ku bixisay lacag ka badan 448 milyan oo biro oo ka faa'iideysteen muwaadiniin ka badan 10,000 oo qof 480 milyan oo lacaga baanu maalgelin ugu sameynay annagoo raacin nidaamka shariicada islaamka waafaqsan oo loo soo iibinaya alaabtii uu ganacsi walba u baahnaa marka alaabta loo soo iibiyana meheradii loo dhigayo kabacdi lagu dabagalayo bil walba ama sidii lagu heshiiyey inay deyntaasi ku soo noqoto dadka tira ahaan ilaa 13,000 bay ku dhow yihiin macnaa dadka shaqo abuurka sanadkii tagay ka faa'iideystay sanadkan guud ahaan shaqo abuurka qorsheysan waxa weeyaan ilaa 1.3 bilyan oo lacag ah in lagu shaqo abuur loogu sameeyo dhalinyarada iyo dadka kale shakhsiyaadka ee danyarta ah haweenka iyo ay ku jiraan macnaheedu dadka yar ee ganacsiga inay sameystaan ama horumarsadaan kuwa ay hore u saysteen doonaya ilaa 1.3 bilyan inaan ku maalgelino ilaa 40,000 oo qof macnaheedu dad tiro ahna markii gaar ahaan shaqo abuurka guud ahaan qorsheysan sanadkan dadka in loo sameeyo ilaa 121,000 dad kor u dhaafaya ayaa qorsheysan sanadkan in shaqo abuur loo sameeyo laakiin si gaar ah ilaa 40,000 in ka badan baa macnaheedu adeeg shaqo abuurka deymaha inay ka faa'iideystaan qorsheysan tahay marka waxaad aragtaa macnaheedu differencega farqiga u dhaxeeya sanadkii hore iyo sanadkan xataa macnaheedu intaasoo jeer inay kusoo ilaa 4 jeer inay kusoo jibaarmayso ay ka badan tahay intii sanadkii hore la qabtay marka la barbar dhigo dhanka maalgashiga ayaa xukuumaddu ahmiyad gaar ah siisay waxaana mushaahadada maalgashiga la siiyay maalqabeeno tiradoodu dhan tahay 472 kuwaas oo isugu jira muwaadiniinta dalka iyo kuwa dalka dibaddiisa ah wadarta hantidooda ay maalgashiga ku samaysanayaan waxa ay dhan tahay 1.1 bilyan oo bir oo ay fursado shaqo ka heli doonaan in ka badan 55,000 oo qof
arrimaha kale ee xusida mudan ee xukuumaddu muddadii sanadkaayada ee joogta ee qaaday waxaa ka mid ah tallaabada gacanta dowladda loogu soo celinayey dhul si sharci darro ah magaca maalgashiga loogu qaatay dhulkaasi oo ku yaala gobollada Shabeelle iyo City iyadoona dhulkani oo aan waxba laga qaban malaayiin lacaga lagu qaatay ayaa waxay xukuumaddu gacanteeda ku soo celisay dhul dhan 18443 hektar kuwaas oo looga faa'iideyn doono shacabka deegaanka dhinaca adeega shacabka iyo horumarinta xuduudda shaqaalaha sanadkan waxa ay dawladdu ka qabatay hawlo kala duwan waxaana fursado waxbarasho la siiyey heerarka kala duwan ee digriga iyo masterta dad dhan 533 qof kuwaas oo ay ka mid yihiin 277 shaqaalaha dawladda halka 60 arday oo dhaqaatiir cusub lagu xiriyay jaamacadaha dalka sidoo kalena 60 arday oo soo baran doonta aqoonta petroleum engineering-ga kharashkoogana xukuumaddu bixin doonto lagu xiriyay jaamacadda Maqala xukuumaddu muddadii sanadkaayada ee joogtay waxa ay hay'adaha dawladda ku shaqaalaysiisay 13895 muwaadin dhanka kale waxa tababaro kala duwan la siiyay hogaaminta heerarka kala duwan si loogu guuleysto barnaamijyada shaqada sida BPR-ka TOT-ga iyo BSc-ga kuwaasi oo si fiican u qabsoomay sidoo kale xukuumaddu maadaama dhalinyaro fara badan oo jaamacadaha iyo kulliyadaha dalkeena iyo deegaankeena ka soo qalin jibso bil camal ay deegaanka ku sugnaayeen isla markaana xafiisyada badankood iyo degmooyinkuba iyo maamul magaalooyinku shaqaale la'aan awgeed adeegii loo baahnaa inaan bixinayn iyadoo laga duulayo gaabka ka jira dhinaca shaqaalaha ayaa waxaa la shaqaaleeyay 29000 oo qof sanadkii la soo dhaafay sanadihii ka horeeyay su'aal celis 3000 wax ka badan lama shaqaaleeyay halkii sana xukuumadda cusub ay jirtay 29000 oo qof baa la shaqaaleeyay taa kama dhigno mustaqbalka xukuumaddu ay sii adkeyn doontaa shaqaaleynta xafiisyada dawladda waayo qaab dhismeedku uu kooban yahay mustaqbalka shaqo abuurka kala xoog la saari doonaa xisbiga dimuqraadiga Soomaalidu xukuumadda uu hogaamiyo oo mas'uulka bulshada deegaanka labaad ee ugu ballaaran dalka ahna qoomiyada saddexaad ee ugu badan Itoobiya waxay Italiya tamarba isku geysay sidii ay u muuqan lahayd kaalinta Soomaalidu ay ku leedahay siyaasadda iyo ka soo muuqashada xubnaha ka soo jeeda qoomiyada Soomaalidu qaab dhismeedka dawladda federaalka inkastoo bilow fiican jiro haddana masiirka Soomaalidu ku leedahay dawladda federaalka weli fari kama qodbana gaar ahaan sidii aqoonyahanka Soomaalidu ay dhex muuqan lahaayeen wasaaradaha kala duwan haddii ay noqon lahayd wasiiro dawlayaal daareektarada iyo xitaa shaqaalaha hoosaadkaba xukuumaddu waxay guntiga u adkaysatay wanaajinta xiriirka u dhaxeeya xukuumadda iyo dawladda federaalka iyo in dawladda federaalku il gooni ah ku fiiriso tabashooyinka shacabka Soomaalida gaar ahaan dhanka horumarka ilaa hadda waxaan ka qabanay waxa jirta wixii markaa miiska yaalay oo shiraab ka mid ahaa in dood loo baahdo meesha aan geeyno ana aaminsanahay in wixii loo baahna laga keenay laga soo midaliyay dhinaca ka qaybgalka siyaasadda federaalka qayb ahaan dambiga inaga leh Soomaaliyan oo waadaweyt waxa jirta kootooyin la siiyay xagga ciidanka xagga jibriga xagga oo ahaayay bangiga xagga qoladan electriga sirdoonka waxa jira marar fara badan warqad nala soo qoray oo leeyahay intaas oo 100 qof oo Soomaaliyeed keena badanka dhalinyaradu arintaas sidii arrin uga qayb galaan waxaan ugu wacan koow iyagoo u arka nolosha aad sabab taala inay adag tahay oo halkan waxay ku qaataan uu dhaamayo iyadoo oo dhaqan siyaasadeed oo lumay oo mashaqaysanay oo ballaaran uu iska jiro oo qof walba oo dhalinyarada oo kii heer federaal inaga anfici lahaa maadaama qof waxbartay looga baahan yahay xagga uu dareemayo inuu heer mas'uuliyeed ama xil mas'uuliyeed ka qaban karo deegaanka dhexdiisa marka work ethic ama dhaqanka shaqada oo aan aad u hergelin deegaanka awgeed kamayna faa'iideysan badankeeda laakiin anagu mar walba arrinta ma wadna waxa laga qabtay oo muuqdana way jiraan dad fara badan oo boqolaal gaaraya oo iyadoo caqabadaas jirto haddana ka qayb galay oo maanta ku soo biiray haykalka civil service ka jira heer federaal ayaa jira sanadkii la soo dhaafay xukuumaddu waxay xoog saartay in la adkeeyo xiriirka nula leenahay dawladda federaalka si aanu xuquuqdii aan federaalka ku lahayn u helo kolka dadaalkii ay xukuumaddu samaysay natiijooyinka ka dhashay waxaa ka mid ah kow in shaqo abuur looga sameeyo dhalinyaro deegaankeena u dhalatay wasaaradaha iyo hay'adaha kala duwan ee federaalka waxaa tusaale ahaan loo soo qaadan karaa komishinka jibriyada oo 263 dhalinyaro oo deegaanka u dhalatay in shaqo abuur looga sameeyo waxaa kaloo la soo qaadan karaa shirkadda jidadka ee federaalka
in 179 dhalinyaro oo deegaanka u dhashay shaqo abuur looga sameeyay hadda ka shaqeeyaan. sidoo kale waxaa la soo qaadan karaa in 104 dhalinyaro oo deegaanka u dhalatay ay shaqo ka helaan bangiga ganacsiga Ethiopia, Commercial Bank of Ethiopia. sidoo kale waxaa la soo qaadan karaa in sirdoonka Ethiopia ilaa 16 dhalinyaro oo deegaanka u dhalatay ay shaqo ka heleen. arrimahaas mustaqbalkan waanu sii xoojinaynaa. arrimaha kale ee xukuumadda cusub ee aadka isugu hawshay isla markaana ku guuleysatay waxaa ka mid ahaa in dib habeyn lagu sameeyo xeerarkii qaybsiga khayraadka dabiiciga, waxaana golaha federationka dalku uu dib habeyn ku sameeyay xeerkii qaybsiga khayraadka dabiiciga gaar ahaan shidaalka. sidoo kale si aanu xuquuqdan ku lahayn federaalka u helo hawlahan xoogga saaray waxa weeye shuruucda kala duwan ee dib loo habeynayo ama kuwa cusub la soo saarayo inaan si firfircoon uga qayb qaadano si aanu xuquuqdii aan federaalka ku lahayn u helo oo shuruucdaas ay noo sugaan. waxaan tusaale u soo qaadan karnaa sharciga ku saabsanaa khayraadka dabiiciga ah oo run ahaantii hogaaminta deegaanku dadaalkii ay samaysay awgeed 50% dakhliga ka soo baxa khayraadka dabiiciga inuu deegaanka Soomaalidu helo. 25% kamida dakhliga laga helo khayraadkaas dabiiciga ah sida shidaalka oo kalena in deegaanada kale aanu la qaybsano. kolka tusaale ahaan shidaalka oo kale dakhliga laga helo ee Ethiopia ka hesho 50% deegaanka Soomaalida qaadanaya, 25% dakhliga ka soo baxa shidaalkana deegaanada kale ayuu deegaanku la qaybsanaya. arrimahan khayraadka wadanka iyo saami qaybsiga iyo shidaalka oo isagana muran iyo wax cad uusan ka jirin oo wax cad hadda ka hor aan laga qabanin in xilligan ay xukuumaddan ay jirtay in laga wada hadlay dagaal ay u galeen oo la cadeeyay 50% inay ku leedahay 50% inuu deegaanku leeyahay. waxa kale ee federaalka galahayana ay saamigeeda ay ka qaadanayso. arrintan arrin muhiim ah weeye oo waxyaalaha la qabtay waqtiguna uu iska koobnaaba muddo sanada isbeddelku yimid walibana isbeddel caadi ah maahan wixii deegaanka ka dhacay oo xil lala kala wareegay isbeddel dhibaatooyin iyo degdeg ku dhacay buu ahaa oo wax lala kala wareegay ayna jirin oo keentay dhibkii jiray iyo culayskii inuu keeno inaan waxba lala kala wareegin si degdega ku dhacay buu ahaa. si kor loogu qaado isla xisaabtanka iyo cadcadaanta waxay xukuumaddu dabayaaqadii sanad miisaaneedka 2011 isugu yeedhay dhammaan hogaaminta magacaabista heerarka kala duwan si la isku weydiiyo ammaanadii iyo qorshihii la kala qaatay siday u maareeyeen. geedi socodka qiimaynta oo loo waday si mas'uulka aan shakhsiyadiisa iyo sharaftiisa lagu xadgudbayn ayaa waxaa mudnaanta la siinayay qorshihii qaybta mas'uulku ka yahay sidii uu fulay iyo waxaan ka fulin. inkastoo muddadii qiimayntu socotay laga tallaabo qaaday hogaamin ka badan 200 kadib markay la iman waayeen anshax hogaamineed, haddana waxaa xigay kuwii ku sifoobay gudasho la'aanta shaqada iyagoo beddelkoogiina lagu soo magacaabay dhalintii kale ee waxbaratay deegaanka ku sugnayd. ujeedada qiimayntan waxay tahay qorshihii aanu dejisanay sanad miisaaneedka 2011 wixii ka fulay inaanu si qoto dheer u qiimayno, wixii aan ka fulina sababta u fuli waayay in la ogaado, ciddii fulin weyday si loola xisaabtamo. sidoo kale in hogaaminta modelka hormuudka ah ee xilliga waajibaadkii loo igmaday ka mid dhaliyay qorshayaashii u dejisnaa ka mid dhaliyay ka faa'iideysiga shacabka xaqiijiyena in la dhiirigeliyo kuwa aan xilkooda gudanna in tallaabada ku habboon laga qaado. sidoo kale waxaan garab wadnaa in aanu awoodda fulineed ee hogaaminta kor u qaadno, anshaxa hogaaminta in la ilaaliyo, hogaaminta aan anshax hogaamineed lahayn in tallaabada ku habboon laga qaado. kolka annagoo ka duulayno qiimayntii aanu wadnay hogaamintii anshaxumada lagu arkay geedi socodkii qiimaynta sidii la rabay aan uga qayb qaadan tallaabaanu ka qaadno. kolka hogaamin tiradoodu dhan tahay 202 oo heer degmo, heer maamul magaalo iyo heer gobolba isugu jirta ayaa tallaabo laga qaaday oo xilkii ahayeen laga qaaday. sidoo kale hogaamin heer deegaan oo iyagana lagu arkay anshaxumo oo 10 ku dhow
tallaaba laga qaaday kolka mustaqbalkana taa waa lasii xoojin doonaa. caqabadaha ugu waaweyn ee soo food saaray sanadkii ay jirtay xukuumaddu waxaa ka mid ah hay-ado ama xafiisyo tayo leh oo aan jirin iyo sidoo kale awoodda fulineed ee hogaaminta iyo shaqaalaha oo heerkii la rabay aan gaadhsiisnayn. qorshayaal fara badan ee xukuumaddu dejisay ayaa jira. qorshayaashaas sidii loogu talagalay inay u fulaan loogana midhodhaliyo waxaa laga maarmaana institutionno hay-ado fulineed oo adag oo sidii loogu talagalay qorshayaasha la dejiyay u fulin kara, si tayale u fulin kara, iyagoo shacabka ka qayb gelinaya, natiijooyinka ka soo baxana shacabka si cadaalad uga faa'iideynaya. kolka taa caqabada koowaad ee naga hortamid ayay ahayd. sidoo kale way aragnimada iyo awoodda fulineed ee hogaaminta iyo shaqaalaha dawladana sidoo kale heerkii la rabay ma gaadhsiisnayn. taas ugu muhiimsanayd. sidoo kale fahamka ay shacabku ka haystaan dastuurka iyo shuruucda kala duwan na sidoo kale heerkii la rabay ma gaadhsiisnayn. si ka qaybgalka shacabka kor loogu qaado, ka faa'iideysiga shacabkana sidoo kale loo xoojiyo, waxaa laga maarmaana shacabku inay ogaadaan xuquuqdooda iyo waajibaadka saaran. sanad miisaaniyadka 2012 howlaha ay xukuumaddu xooga saarayso waxaa kow ka ah in la sii xoojiyo nabadgelyada deegaanka, in la adkeeyo hay-adaha nabadgelyada. sidoo kale xukuumaddu waxay xooga saaraysaa in la adkeeyo hay-adaha cadaaladda si loo xaqiijiyo sareynta sharciga. kolka deegaanka nabadgelyo waa si looga xaqiijiyo sareynta sharciga, si loo ilaaliyo waxaa laga maarmaana hay-adaha nabadgelyada iyo hay-adaha cadaaladda awoodooda fulineed in kor loo qaado, in hogaamintooda la adkeeyo, awoodda fulineed ee hogaaminta kor loo qaado, cududooda shaqaale iyo ciidamadaba in la adkeeyo. sidoo kale qaab shaqeedkooga nidaamka ay ku shaqeynayaan in la adkeeyo, gashigay u baahan yihiin in loo dhammaystiro yaa laga maarmaana. kolkaa xukuumaddu iyadoo ilaalinaysa madax banaanida hay-adaha garsoorka, balse wada shaqeynta hay-adaha garsoorka iyo hay-adaha kale cadaaladda iyo nabadgelyada in la adkeeyo ayaa xooga la saari doonaa. kolkaa qodobka koowaad ee muhiimka waa kaas. ka labaad waxaan xooga saari doonaa shaqo abuurka miyiga iyo magaaladaba. xukuumaddu waxay ku dadaali doontaa fursadaha shaqo ee looga faa'iideyn karo dadka bilaa camalka ah in la sooco, dhalinyarada bilaa camalka in la diiwaan geliyo, fursadaha shaqo ee jira in lagu baraarujiyo, lagu wacyigeliyo si ay uga faa'iideystaan. kuwa shaqada diyaarka u ahna tababarkay u baahan yihiin, deyntay u baahan yihiin, meelahay ku shaqaysanayeen in loo fududeeyo. markay shaqo galaana dabagal dhow in lagu sameeyo oo closely in loo dabagalo, loo taageero si ay shaqooyinkaas ay uga faa'iideystaan. wax soo saarkooga iyo adeegay bixinayaanna mid tayo leh oo dadka isticmaalaya qanciya uu noqdo. dhinaca kale waxaan xooga saari doonaa kor u qaadida tayada waxbarashada iyo adeega caafimaadka. waxaa lagu dadaali doonaa in la tayeeyo xarumaha waxbarashada, dugsiyada heerarka kala duwan in la tayeeyo.